waxay ahayd maalin Arbaca ah abaarihii 11kii subaxnimo 14kii Juulaay 2019 Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid kamid dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida waxay ka codsatay in marka uu gudoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo kaliday ayaa xafiiska ka shaqeeya waxbana uma qaban karo ayay tiri abaarihii 1 duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir ku dhawaad 4:00 galabnimona waxa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan qaraxaasi waxa ku dhintay 6 ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir goor dambana waxa u dhintay 2 qof oo ku jiro gudoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow liibaan oo ah magacaan ugu yeerayo mas'uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii habeenkiina waxa loo sheegay in la laayahay Basiiro loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambeysay liibaan waxa uu qaadan waayay in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay shaki ayaana galay laabtiisa haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu warramayo galka baarista qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka toddobaad kadibna waxaa dhaawacii soo gaaray u geeriyooday gudoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow dawladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambeysay Basiir Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo la laayahay laguna magacaabo Degan Cabdullaahi Cali su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiir Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir yaa u geeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab iyo su'aalo kale galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaas iyo kuwa kale bishii December 2011 Basiir Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan waxay xilligaasi gashay fasalka 2 waxaana la barayay farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la magaca ay isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiir Cabdi Maxamed waxa galka baaristu uu xaqiijiyay in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburo waxayna ahayd qof soo jiidasho leh sida uu galka baarista u sheegay mid kamid ah macallimiintii wax u dhigi jirtay bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaan Braille-ka waxayna markaas u sheegtay maamulka inay tagayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah sanadkii ku xigay ee 2015 horaantiisii waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo Sawdo bishii Maarso 23keedii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 qodob oo kala ah inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobolada oo dhan ay ka wada qayb galaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 4taasi qodob ka hirgeliyay mid kamid ah kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada iyadoo 3 kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tagay markii ay dhalatay dawladda cusub dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay si anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxay kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra'iisul wasaaruhu kula kulmayay bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017 waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra'iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dawladda cusub iyo gobolka Banaadir sida uu sheegay mid kamid ah mas'uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay bishii Juulaay ee sanadkaas iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa mas'uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii deyn lahaa warbaahinta dawladda waxaa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadle ah in loo sameeyo dadka naafada wasiirku waxa uu soo dhaweeyay fikradaasi bishii Janaayo 22keedii 2018 injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu ka tagay wasaaradda warfaafinta waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir
bishii maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiire Cabdi Maxamed. wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan guddoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka. mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato Basiire Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada. guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan. 15 May 2018 injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii, waxaana uu wareegto ku magacaabay Basiire Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir. waraysi ay siisay Basiire Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay. arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dekreetada soo baxday 15 May ee soo baxday. fursado badanna way noo saamaxeen. ugu horeyn dadka naafada ah oo aad u jeclaa in macnaheedu aan u qabto arrin mas'uuliyad ah oo arrintooda u ololeeyo oo waxa la yiraahdaa u ololeynayo markasta in aniga aan u taga boos aan arrintooda wax uga qaban karo ama uga dhaqdhaqaaqi karo mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yiraahdaa aad u daneynayeen. qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Cumar Yariiso guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isaga oo xilka haayay asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aad u jecel. hadduu wasiir ahaay iyo hadduu guddoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aad u daneeyo ahaay. bishii Juun 30 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalladda ururada naafada kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah. mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Basiire Cabdi Maxamed. waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha, waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhaxeeyay oo kaliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. bishii Disembar 31 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay'adda naafada qaranka. safka hore dadkii fadhiyay waxaa ka mid ahayd Basiire Cabdi Maxamed. madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan dhinaca shaqooyinka. ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan, dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto. waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno maxaan ku rahdaa daryeelkooda aan gaarsiinno oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yiraahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo. 24 Juulaay waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar, waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii Degan Cabdulaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan. maalintii uu qaraxu dhacay ee 24 Juulaay labada gabdhood midkoodna laguma samaynin wax baadhis ah sida ay sheegeen laamaha amniga. sidoo kale ma aysan ahayn dadka kaliya ee maalintaas galay xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin. dowladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga. haddaba maxaa laga ogyahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi? dabayaaqadii bishii May 2019 Basiire Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda Degan Cabdulaahi Cali waxay qaateen 2 fasax oo isdaba yaala. fasaxa waxaa ku horreysay Degan Cabdulaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiire Cabdi Maxamed oo iyadu shaqada keentay. isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiire Cabdi Maxamed, waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26 Juun. mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay al-shabaab ka taliyaan. sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ii sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiire Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya. inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan 2 qof oo la hadlay galka baarista. hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin, loona badinayo inay u safartay deegaanka Toorotorow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab. Basiire markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadii xorriyadda ee 26 Juun iyo 1 Juulaay.
mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay inay ka qayb gashay munaasabadii hore ee 26 Juun waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee 1 Juulaay sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba galka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas'uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in Basiir Cabdi Maxamed ay xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada Buqa Qable labadaasi qof mid kamid ah waxa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiir Cabdi Maxamed mid kamid ah labadaasi qof waa Xasan Maxamed Abikar oo adeer u ah Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar Xasan Maxamed Abikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga kan kalena ehelka Basiir Cabdi Maxamed waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Maxamed Abikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha galka baarista way u suurtagali weyday inuu telefoonka kula xiriiro Xasan Maxamed Abikar sidoo kale laba ka mid ah ehelada Basiir waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abikar ayna ku magac dheer tahay Shiino waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta mid ka mid ah ehelada Basiira waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiira uu soo doonay inay isku barteen magaalada Muqdisho balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo ureyn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay qof saddexaad oo ka mid ah ehelka Basiir Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saameyn ku lahayn waxba kuma ogi Basiir aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abikar waxa la sheegay inuusan ku noolayn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab isla markaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiira Cabdiraxmaan Maxamed Abikar hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa galka baaristu waxa kale oo la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay qoysku ma oga inay Al-Shabaab ka tirsanayd ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanayd waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale waxaana uu ku jawaabay maya wax iyada u qarsoon ma ogaan karno laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sidii uu qaraxaas u dhacay hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo xiran muddo 50 maalmood ah Cabdulaahi waxa uu la dhashay Basiira haddii haddaba Basiira ay ka tirsanayd ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey sidoo kale ma jiraan cadeymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi hase yeeshee ehelada Basiira ma aysan beenin warka dawladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambeysay Basiira